ninbaa hadda ka hor wuxuu reer bani israa'iil buu ahaayo muslim buu ahaa aakhirana waa rumaysnaa laakiin caasi buu ahaa dembiila oo dembi badan oo acmaal saalixa aan lahayn hase ahaatee maalqabeen buu ahaa khasluul arrin buu lahaayo caado u ahaydoo wuxuu odhan jiray dadku daymin jiray lacagta markaa dhallinyarada u shaqaysay wuxuu ku odhanayaa khadamkiisu wuxuu ku odhanayaa ordoo lacagtii daynta iga soo qaada dadkaan ku leeyahay ninkaad u tagteen hadduu muusir yaho iska bixin karo iga soo qaada walaakin tayaasaruu macahu hadalka u fududeeya oo ha ku dhibina haddii uu mucsir yahay oo uusan iska bixin karin oo la go'dayna tajaawazuu canhu iska cafiya lacala allah an yatajaawaza cana yowma alqiyaama waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagana yowma alqiyama iska keen cafiya intaasuu odhan jiray khadamkiisa saasay ku shaqayn jireen kii mucsirkaa iska dhaaf sayidkeenna iska dhaaf wey lacala allah an yatajaawaza canhu ilaahay ninkii yowma alqiyaama buu keenay wuxuu yidhi maxaad camalood saalixood haysataa waxba ma haysto maa cindu aya camal saalix ilaahu arrintaasaan lahaa buu yidhi oo maxay ahayd dadkan lacag daymin jiray oo xoolahayga daymin jiray oo markaa haddii uu muusir yahayna tayaasaru macahu baan ku odhan jiray shaqaalahayga hadduu mucsir yahuusan iska bixin karinna tajaawazuu canhu lacala allah an yatajaawaza cana baan odhan jiray ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bihada mink annaga ayaa karamkaa iyo wanaagga kaaga awlaysan tajaawazuu can cabdii addoonkaygana iska cafiya adkhiluhu ljana jannada hata waxba ha fiirinina hada karam allah caza wajal bilmucaamala ayiba mucaamalada wanaagsan beri dhoweydna anoo maka jooga masjid yaroo meesha aan deganahay xaafadda casiiziya ayaa salaaddii casarkeena tuji dhahe waan tujiyey masaajid wey kitaab meesha yaalla oo fadaa'il ulacmaal ku yaalla oo acmaasha fadligeeda ka sheekaynay ayay dhaheen sheekhii imaamka noo ahaan jira noo akhri jira adna noo akhri kitaabkii baan akhriyay xadiidkaanaa soo baxay uguma talagelinba xadiidkaan akhriyay waan akhriyey oo xoogay tacliiqaasaan ka bixiyey in ilaahay wax weyn dhigay tajaawuska iyo fadliga iyo ixsaanka bayna annaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan uu dhex dhigay oo jannadiiba ay ku geyn tii baan ka hadlay nin baa istaagay wuxuu yidhi yaa sheekh ويا جماعة كلهم أشهدكم أن لي على فلان ابن فلان مقعس الشيء 80,000 تجاوزت عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة وحن إذا كما خاتي قال لي يا أبو هبل سديتن كم مالوك كلها هيو إن الإلهي درتي سوء عفيي إن إلهي أنا يعفي يقول دعي عافى الله عنك والله أكبر بالليل والله دعي كوك لا يسنى يستاقوا وحيل أنا قال هبل بان لعب كله وأنا عفوت عنه كذلك أنا قال وأنا عفي كي عجيب وشيء وحساء ويالي أنا ويالي بيلي وحن كبقي يقول هدان هوست عند يعني نفته يدقون آن أرنت قصر يسلها ونكي أورن له وانكو عفي وحن كبقي يا بيلي نفسه نفس شيطانه إني يقصه الله حتى هدو بخلقي وقال له ورحن معول عفينك ها يشرقوا ورحن معول عفينك ارتدي marka saasaan idiin markhaati geliyey buu marka hadalka insha Allah waa igu dheeraaday maqsuudkii ujeedada insha Allah ilaahay khayr Allah idin siiyo kulanka wanaagsan ee isugu timaadeen diinta ilaahay aan u dadaalna insha Allah kulli sheekha baabu tashkiil iyo khuruuj fi sabiilillah iyo sidaad waqtigiina u ratibi lahaydeen bayna ad-diin wad-dunya bayna al-hayati wal-aakhirah sheekha insha Allah inoo yarmarin doono de kulli ana ka munadimka yana ka hor dhicine laakiin waxaan insha Allah taala kulligeen aan saaka aan halkan isku waaninayna naftayda baan ka bilaabay in aakhir ay aham shay ku noqoto in aad saalix mustaqiim salaadaada dhikrigaaga awraadaada iyo khayrkaaga iyo ku xiranka ilaahay iyo diinta ilaahay u shaqaynteeda in aad marmarka qaarkiis fasaxa iyo fi sabiilillah aad u baxdaan oo ma garanaysa aad ka faa'iideysataan khayrkaas ilaahay idin siiyey nicmada alla idin waafajiyey baan isu soo jeedinayna allah yuwaffiqna wa iyaakum lima yuhibbu